komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa shir jaraa'id maanta ku qabteen xarunta jaamacadda Sanaag University ee magaalada Ceerigaabo waxay halkaasi kaga hadleen wajigii labaad diiwaangelinta codbixiyaasha gobolka Sanaag oo la soo gabagabeeyay iyo waliba diiwaangelinta codbixiyaasha gobolka Sool oo diyaar garowgiisii komishan ahaan ay bilaabeen gudoomiyaha komishanka degmada Ceerigaabo Maxamed Cali Tiirshe iyo gudoomiyaha komishanka gobolka Sanaag Axmed Cali Biixi oo ugu horreyn iyagu halkaasi ka hadlay ayaa uga mahad celiyay komishanka doorashooyinka ee heer qaran qaabkii diiwaangelintan u soo socotay dadweynahana ugu baaqay inay isdiiwaan geliyaan oo ka faa'iideystaan muddada kooban ee u harsan si wanaagsan bay nagu soo dhamaatay muhiimaddu waxa weeyaan dadku inuu isdiiwaan geliyo si loo kala socnaado codkiina ku doortaan cid aad doonaysaan waxaan u mahad celinaynaa guddiga komishanka doorashooyinka oo ay hadda nagala joogaan afayeenka komishanka mudane Siciid Cali Muuse iyo komishineer Cabdiraxmaan Ismaan Aadan oo iyaguna in muddaaba nala joogay imikana nala joogi doona ilaa iyo xiritaanka imika waxaa noo muuqataa dad badan oo degmada Ceerigaabo jooga qaarkood inaanay danayn badan ibaanay ku jirin oo aanay danaynaynin inay isdiiwaan geliyaan marka waxaan leeyahay fadhiga ka kaca reer Sanaagna waxaan leeyahay hawsha xil weyn aan iska saarno oo gobolada la tartanno komishineer Cabdiraxmaan Ismaan Aadan iyo afayeenka komishanka doorashooyinka Soomaaliland Siciid Cali Muuse oo iyaguna halkaasi hadalka isaga dambeeyay ayaa waxa hadalloodii ka mid ahaa wajigii labaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha oo magaalada Ceerigaabo gudaheeda ka soo xidhmay 10kii goobood ee magaalada Ceerigaabo oo ay ka soconaysay 14 cisho ayaa xalay fiidkii la soo gabagabeeyay waa mahad Ilaahay gobolka guud ahaan 18 cisho ka soconaysay waxa ay 14 cisho oo ay noqon doonto waxa loo yaqaan residualka ama kaabista dadkii ka faa'iideysan waayay ama fursadda u waayay inay ka faa'iideystaan waqtigii hore inaanu u dhigno tuulooyinka oo laga yaabo in kidkiiba uu yaalo tuulo 2 cisho ama 3 cisho meelaha aanu ku tumayno in dad badan ay ku hareen degmo doorashooyinka Garadag Celifweyn Ceerigaabo iyo Badhanba waxaan dadweynaha gobolka ugu baaqaynaa intii aan isdiiwaan gelin inay ka faa'iideystaan fursaddan 14 cisho oo ay muujiyaan gobolka Sanaag intaan ku jirnay waxaanu ku aragnay wax aan filayn waxaanu islaahayn qof quri ku celcelin maayo laakiin imika waxaanu haynaa dad ku celceliyay oo waliba dhowr boqol gaaraya waxyaabo la yaab kale waxa dhacday oo anigu 2 cisho ka hor aan ku soo maray deegaamadan marka Ceerigaabo laga soo gelayo galbeedkeeda in dad gaawaari lagu soo qaaday oo lagu soo kharash garoobay ay yimaadeen iyagoo gobolka Togdheer iska diiwaan geliyay wixii si khaldan u diiwaan geliyay loo diiwaan geliyay komishanka ayaa hawshooda ka qabsanaya nusba tagay musbaaray maanta kala bar baynu joognaa 14 cishana waa tagtay 14 cishana waa hadhay waxaan maleeyaa Sanaag inay inta diyaar u tahay ugu dambeyn afayeenka komishanka doorashooyinka Soomaaliland Siciid Cali Muuse isagoo ka hadlaya u diyaar garowga diiwaangelinta codbixiyaasha gobolka Sool ay bilaabeen wuxuu yiri halkan barbarkayga imika kuwa yaala waa kuwa raran waxay u raran yihiin Sool halkaas aad ku arkaysaan wirwid halka waxa kale ku xigta balliga Samakaab kulligaas waa meesha loo raraayo oo sanduuq walba uu tagaayo saa dambe ayay bilaaban doontaa raristoodu waxayna tagi doonaan gobolka Sool halkaasi oo ay hawshu ka bilaaban doonto Abdullaahi Xuseen Darwiish Kalsan TV Ceerigaabo